waxa qalbiga ka xanuujinaya ii sheeg maxayina maciyaalkaaga mise waa naftaada sidee yani arrinka aad la murugoonayso ma duruuftaad ku sugan tahay mise wata awlaadaada wata awlaada wallaahi dadka badankooda xataa waxaa la odhan karaa duruufta ayay isku daawadaan oo iskuma naxaan xaasku way xanuunsanaysaa waxaan sameeyana ma garanaya xaaskaaga maxaa helena kansar ayaa ku dhacay iyada xanuunka markaa ma soo ritaynaa ilaahay ayaa caafinayada laakiin maxaad dawan weyday wallaahi waan ku samray ilaahay baan u daayey samirkuna waa shay qaaliya miyaad awoodi weyday inaad daweyso markaa cidna iskuma naxayso maxaad dhakhaatiirta ugu tegi weyday aad oran weyday ilaahay dartii igu daweeya wallaahi inaani kuwaas ilaahay dartii igu daweynay cidna uma naxariistaan mararka qaar daawooyinka 20,000 50,000 iyo wax ka badan baa lagu odhanay laakiin maxaa ka fiican qof haysta xadhigga alle والله العظيم هدي أضحيسته حرق إلهي أو إلهي أمل أتكسوكسو إلهي بان كدارته دولك فريسن ميسي الله أيها كوركو قاضية سكستي دروفتو كوكو أدكتاي ووايوه كو عيليو لكن لك ما قصته نحريست إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقصة عصب يهبين عصب حلقة دي هوري مركان صوتو من عصركي waxa ii soo dhacay telefoon iga yimid walaalkay Nabiil wuxuu ii sheegay qiso run ahaantii aad ku taabanaysa waana qiso raadinteeda leh waxaan igu yiri kaale xasanow aan soo duubnahay laakiin maxay tahay qisadaasi waa nin macallina xaaladuna aad ugu adkaadeen waa nin fanaana oo farshaxana waxaan qoray ciidda wax ka badan oo farshaxana oo kala nooc laakiin waan ka xunnahay haddana waa bilaa amal marraba inaan sheeko kaliya idigu dhamaystiro qisadan laakiin si toos ah aan imika u gudo galno on indheena ku soo aragno waxaan u qaban doonaa challenge insha Allah waan ku guuleysan doonaa sidan u aragnay imika isagoo murugeysan biidnillah wuxuu tagi doonaa isagoo faraxsan haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe like share meel kastana gaarsiiya haatanayna marsha dunidu waa harka labadiisa gelin waqtiguna waa usgadgadiya qof aad shalay ladnan ku ogeyd ayaa dhacaysa maantana waqtigiina weelo taasina waa sunnada nolosha Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku imtixaamaya adoomadiisa kii shalay waxay ayaa laga yaabaa maanta inaan waxba hayn kii aan waxba haysanna waxa laga yaabaa maanta inuu haysto laakiin qofkii Allah ku xidhan iimaankiisuna saadiq yahay الله وحو كإرساقا ميل آنو سكا فيلانين امتحانك لا امتحان يوقفك بني آدم كان وحلو بانياي إن أكوابهو سمر يطلقات بدن وهورا لوهري سمرا صدكي وهلا لكن مركزت الله سبحانه وتعالى وحن ويدي سننا نحاريستيسا يإرساق دواسع وحلالا السلام عليكم وعليكم السلام سيدتها ولا أمروسي كويهنا الحمد لله أضيقر عليه ولال قال حلقة صوفريسو كون معروف هذه بقى ما شاء الله قال ولا حلقة فريسانة صوفريسو السلام عليكم عليكم السلام اسكو كشيقنا مذيع قالب أو صالب وسوي نكسن أن مذيع مش قضيستانها محاتري أرتيستي اسكول كيان أرتست كودي جري هاي محاك لا دقي جرتنا تربية إسلامك إلا ما أنت مياد دكتور مسوي بس خلاص ما يمدقو ويانا dagaaladii shaqadeedii saameyn weyn ku yeeshay kadibna waxaan noqday qof meelahaas uu ka shaqeeya يعني iska baagamooda ayaa tahay marka micnaha imika baaladan yar ayad iibisa waan gartay waxaad ugu tiri waxaan hay farshaxan farshaxamiiste laakiin imika wallahi duruufta iska dareemi kartaa soo maaha xaalku ma wanaagsana waan gartay micinow kuwan waa ubadkaagii soo maaha saddex kala harsan waliba intan ma in kala miya saddex hablood waa saddex hablood iyo laba wiil ma sha Allah iyo xaaskaaga xaasku way xanuunsanaysaa miya xanuunsanaysaa maxaa markaa kuu kalifay inaad dhaxanta aad joogtaan inagoo ku jirnaa bishii 12aad oo wali hadda aan geli rabno sanadkii cusbaa gacan horsigaan iska nacay waa ceeb taas ay igu kaliftay qabowga inaan adkaysto wax kala sameynaba markaa garanaya ciyalka xaaladoodana wallahi wax kala garan maayo anigu ilaahay un baan tala saartaa ilaahay suu doono ku irsaaqaya ma kiraad ku jirtaana kiran ku jira walaal waliba 6 bilood baa liigu leeyahay adiga 6 bilood oo dhan adiga marka guriga laga soo saarayna wada ogtahay qof karoolayska hadduu waxba waayo inaan cidna u naxayn banaanka saasa nagu kaliftaa naga
waayana macal aniga iyo ciyaalkii dhammaan waan la soo saaray. ma adiga iyo reerkii oo dhan? haa, aniga macal reerkaygii oo dhan. waddada haa, waa sidaa. ilaahay baanu leenahay. xitaa haddaan taandhown iska helayno waxaan dhulka dhigana baan weyne noogumay darteen. ilaahay baad markaa tala haa, saaray? ilaahay baan tala saaray. waan gartay. mar haddaad iibinayso findhicladan gacantaada ku jira markii horena farshaxanaad ahayd maxaad farshaxankaagii maxaa yeelay anu qalabba ma haystaba. waayo de shaqadan waxay u baahan tahay rinjigii iyo looxaantii iyo agabka lagu shaqaynayey. wallaahi hibo wanaagsan ayaad leedahay maasha allah, laakiin maxay kaaga taalaa? yacni wuu soo baxay ilaahay ayuu wax weydiistay, waa farshaxanayste. ninkani waa farshaxanayste. dad badanna way garanayaan, gaar ahaan iminka mandaqaddan iminkaan joogno dad badan ayaa jira oo garanaya inuu yahay farshaxan. sida shaqo walba amba adduun kastoo aad haysato warwalaal waxbaa bakhayrine ilaahay dartii ula bax. qof walba muu soo baxeen waxna mu iibiyeen, duruuf ku kaliftay mooye. waan gartay miciinow. mudiic weeyaan. mudiic baan ka wadaa. igaraa laho mudiicow, wallaahi mudiic baa tahay. ilaahay ku xafido awlaadaada. aamiin yaa rab. insha allah biidnillaah soo bixi doonaan. insha allah. maxaad igu tirina imise ayaa lagugu leeyahay? 6 bilood. 6 bilood? marka waa 30 kun. waa 180 kun. 180 kun. seed u samaynaysaa markaa? ilaahay baa faraj ii furi. haddii wax isbedel waayeen ka waran? ilaahay unbaa furi doona kolley faraj. muhiimaddu waxa weeyaan qofku inuu tukado. dadka badankoodu salaadda way dhayalsadaan. waxa ugu muhiimsan waa cibaadada alle. yacni marka duruufaha qaar aad dareento qalbiga ayaad ka oydaa soo maaha? waa sidaa. ma garanayo. waxa qalbiga kaa xanuujinayaa ii sheeg maxay yihiina? ma ciyaalkaaga mise waa naftaada? sidee? yacni arrinka aad la murugoonayso ma duruuftaad ku sugan tahay mise wata awlaaddaada? wata awlaadda wallaahi. dadka badankooda xataa waxaa la odhan karaaba duruufta ayay isku daawadaan oo iskuma naxaan. wallaahi waa runtaa. waa laga yaabaa dadka qaar inay xanuuno qabaan aanay socon karin. xaasku way xanuunsanaysaa. waxaan sameeyana ma garanayo. xaaskaaga maxaa heleena? kansal ayaa ku dhacay iyada. xanuunka markaa mid soo ritaynaa? ilaahay ayaa caafinayada. laakiin maxaad u dawayn weyday? wallaahi waan ku samray. ilaahay baan u daayey. samirkuna waa shay qaaliya. miyaad awoodi weyday inaad dawayso markaa? yacni farshaxanka iyo waxaan aad iibinaysaa miyay kaa kafan weyday dawadaada? wax kastaa waa qaali walaal. cidna iskuma naxayso. maxaad dhakhaatiirta ugu tegi weydaad odhan weyday ilaahay dartii igu daweeya? wallaahi inaani kuwaas ilaahay dartii igu daweynay. cidna uma naxariistaan. mararka qaar daawooyinka 20 kun 50 kun iyo wax ka badan baa lagu odhanaya. marka adigu mid awoodi weyday 20 kun amba 30 kun aad ku dawaysaa xaaskaaga? ma hayo walaal. xaggeen ka keenaa? xanuunka markaa miyaad dhibayn? waxaanu samayn ilaa goorma? ilaa intii ilaahay noo qadarow. anigu waxaan ku leeyahay mar kasta cibaadada ilaahay baan ku xidhanahay. allah kariim walaal. allah kariim. waan kartay ku salli rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam. allahumma salli wa anigu waxaan doonayaa inaan kula galo challenge. insha allah. haddii aad guulaysato waxaad helaysaa abaalmarin. haddii aad guulaysan weydo waxba heli maysid. allah kariim walaalkayow. allah kariim. yaakhi maxaa ka fiican qof haystaa xadhigga alle? wallahi alcadiim haddii aad haysato xadhigga ilaahay oo ilaahay amal aad ka sugayso, ilaahay baan ku dhaartee dhulka fadhiisan maysid. alle ayaa kor kuu qaadaya. si kastay duruuftu kugu adag tahay oo waayuhu kuu ciilayo. eeg walaal, anu su'aal baan ku weydiinayaa. haatadan annagu iminka waxaan galnay sanadka 2024. waxaa jira dawlad carabta ka tirsan dhammaantiinba aan jecelnahay. haddii aad weydiiso qof walbana oo shacabka yamaniinta ah, waatee dawladda aad mar kasta aad jeceshahay inay xorowdo. wuxuu koranaysaa sidaas, laakiin waatee dawladdaasi ba noo sheeg. waa dawladda aan iminka dhammaantiinba waan garanayaa. dagaal ayay ku jirtaa. dhammaantiinba waxaan jecelnay inay xorowdo. waan aqaana. noo sheegi kartaa? falastiin gacantay dhiib. wallaahi mudane waxaad ku guulaysatay abaalmarintii koowaad. abaalmarinta ugu horreysana waxaa weeye 50 kun oo riyaal. 1000 jeer hambali ayaan ku leeyahay walaal. ilaahay ku barakeeyo. ilaahay maxaa ka wanaagsan? khayr ayuu kula doonay. allahna waa rasaaq. wax kastoo aad samaysana bilowgii dhammaadba allah rasaaqa ayaa jooga. tan iminka waxaad ku daweynaysaa gabadhaada. waxaanad isku dayaysaa inaad yacni aad dhiirgeliso. walaal. su'aal baan qabaa maad iga jawaabi? waan gartay. su'aal ayaad weydiinaysaa. haddii aan kaaga jawaabo abaalmarintan kaa qaadanaya. maya khalaas haddaba. horta sug, haddaan awoodi waayo aan kaaga jawaabi waayo 200 kun baad bixinaysaa. abaalmarin ayaan ku siinayaa. abaalmarin baan ku siinayaa. laakiin haddii aan kaaga jawaabo abaalmarintii horan kaa qaadanaya. waa si wacan. hay weydii. waxaad ii sheegtaa dhul aanay qorax u soo bixin hal mar mooye. dhulka aan u soo bixin aan cadceeddu aan u soo bixin mar keliya mooye. mar keliya mooye. waa dhulka? maya.
wiigaade yeeshii kala dhulka aan u soo bixin cadcaadu mar kaliya mooye Alaska maya masani fi hadda cajiib soo maaha ku sagar rasuulkan calayhi salaatu wasalaam saddex doorashay sii hadda maya kuma siin karayda kata ana ku sahlaya doorashooyin isii haddii aan si sax uga jawaabo waxaan kaa qaadanayaa abaalmarinta badhkeed hay isii doorashooyin maya iga daawal ma awoodee waan garatoos igu sheeg anaa caadi ku sheegaya anaa wax qoranaya miyaan ku kordhiyaa su'aalaha oo iska tagi miyaan ku kordhiyaa su'aalaha haddii aad badiso waxaad heli abaalmarino kale haddii aad ku guuldaraysato waxaad soo celin abaalmarintan haddii kale waad qaadanba horta waaya haddaba taydan aan ku weydiiyey iga jawaab way doorashooyin isii adigu aniguna doorashooyin baan ku siinayaa war anigu intan baa ku qanacsan inay iska keedaa intan iskama galaafanayo way sugada haddii aad xaaska ku soo dawaysanayso intan anigu waxaan ku leeyahay igu dheh 5 jeer weliba si degdega ma garatay qaduu ii keenay qada kalena uu sii qaatay hal xidhaarahana waxa iska leh walaaleyna reexaad lamood qada ayuu ii keenay qadana uu siiyey qadu yacni ii keen qadu haddana ii siiyey war aniga naftarkayga karin ba hadan ku did wallahi ana markii xitaa oranay oday walaal kale خلاص kontonkiisa kun ayuu rabaa inuu badbaadsado mid kale ma doonayo inuu ku qanacsanahay irsaaqada ilaahay weliga waayil ma weelisay ya weliga waayil ma weelisay shan jeer weliba degdega weliga waayil ma weelisay weliga waayil ma weelisay maya bas خلاص hadda wax tiraada aftigay marwad mariswad maxaa tiri aftigay mariswad mariwad saddex jeer uu degdeg waliba abtigay mariswad mariwad waad ku guulaysatay assalaamu calayk alla maxaa ka wanaagsan macalinkan oo ka qalbi saafisan tanna waa 50 kun oo kale idinku dhabaynta sacabka wada tuma waa istaahilaa wallahi wad maasantahay madayaw dadkan aad arkayso dhan oo sacabka ugu tumay iyo aniga iyo abaalmarintan aad heshay annaga ilaahay ayaa andaga noo kaa keenay adiguna waad guulaysatay ما شاء الله markastana diinteena waxay noo sheegtaa qofka xadhiga ilaahay ku dhagan noloshiisa murug kuma waaro ilaahay ayaa ku talagalay walaalkay diyaw ilaahayna ka farxiyo biidnillah awlaadana ku xafido insha Allah aniguna ilaahay waxaan kaaga rajeynayaa in aad iska xaliso mushkilooyinka yani guriga ka haysta yani ninka guriga leh